qabyaalad ma qoro qofna qabiilku ma difaaco qofna qabiilku ma naco ee runta iyo xaqa ayaad mar walba igu imaanaysaa ku soo dhawow facebookayga page-ka Cabdullaahi Balwaan runta ugu imo xor baad tahay aragtiyaad leedahay fikir baad leedahay wax alle iyo waxa doonta ayaad soo qori kartaa commentiska hoose ee facebookayga page-ka Cabdullaahi Balwaan xor ayaad u tahay ku rafo ku raaxayso haddaad igu siyaasad tahay muuqaalka ii share garee oo videoga like ii saar haddaadan igu siyaasad ahayn waxba muuqaalka share garee videogana like ha saarin iska daawo waxaad doontana qor soo dhawaada facebookga page-ka Cabdullaahi Balwaan ayaad iga daawanaysaa ka mid noqo saaxiibada ku xiran page-ka follow garee si ay barnaamijyada ku soo gaaraan waxaa soo dhamaaday dagaalkii sanad lagu hayay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ugu dambeyn madaxtooyada villa Soomaaliya go'aan bay gaartay go'aanka madaxtooyada ayaan rabnaa markii inaan isdul taagno ma guul siyaasadeed ba masawa isdhiibid siyaasadeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Kismaayo tagay bishii tagtay ee 10 Oktoobar shanteedii wuxuu soo laabtay 6dii bisha isaga oo xaraaqsan dantii uu kala ahaa Axmed Madoobe gaari waayay hadda arrintan ma madaxtooyada guul gaartay maya ayada ayaa isdhiibtay sidee bay isku dhiibtay madaxweyne Axmed Madoobe shuruudo ayuu soo rogay ka hor inta Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh aynan kulmin wuxuu yiri Axmed Madoobe mar rabo madaxweynihii oo aan shuruudaha Jubbaland fulin inuu Kismaayo igu yimaado mar rabo in arrinta laga dhigo igu sawirtii madasha samata bixinta lagu sameeyay siyaasiyiinta mucaaradka fadhigoodu yahay Muqdisho maxaa lagu sameeyay madaxtooyada looga yeeray sawirra lala galay way iska baxeen mar labaad loo yeeray sawirra lala galay way iska baxeen waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tusay shacabka Soomaaliyeed in siyaasiyiinta mucaaradka markuu doono uu sawir la gali karo lana kulmi karo easy ay yihiin oo waxba aynan ahayn oo xaqiisa uu doona ka sameyn karo laakiin Axmed Madoobe taas waa diiday wuxuu yiri haddii aad rabto inaad Kismaayo timaado shuruudaha fulin shuruudda koowaad anqaabtii aad shacabka reer Jubbaland aad anqaabtay oo wixii ay xaq u lahaayeen aad ka hor istaagtay soo fasax waa maaliyadda waa miisaaniyadii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u diiday maamulka Jubbaland علشان أحمد مدوبة أسكول عصناه وحال جوجي لقاليه جبلان للسيجري بش نوفمبر لبكون إيو أفر إيا لبعتن وحال فصحي بش نوفمبر لبكون إيا شن إيا لبعتن تاسو كدغن حال سنة إن لغا حيري لقاليه جبلان ما أنت لقاليه جبلان وعلى فصحي وانا شروطه أحمد مدوبة ولا فلولي كو waxay dawladdu aqoonsan doontaa in madaxweynaha Jubbaland uu yahay madaxweyne la doortay oo aynan dood yar ka keeni karin miisku saaran yahay 5 sano Axmed Madoobe oo November tan looga bilaabayo hamoodin muddada loo bilaabayo inay noqonayso November 2024 ee waa November 2025 micnaha 5 sano hore miiskay saaran tahay dood yar laga ma keeni karo waa shuruudda labaad labadaas shuruudood markuu oofiyay madaxweyne Xasan Sheekh ayay kulmi karaan madaxweynaha dawladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe halka waxa ka cad madaxtooyadu waa isdhiibtay diyaar ayayna u tahay shuruud la'aan inuu fuliso dhammaan qodobadii Axmed Madoobe uu soo gudbiyay ka hor intuusan Kismaayo tagin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka waxa ka cad guusha Axmed Madoobe waana mid aan rajaynayay filayay hubay isla markaana dadka igu xiran aan hortooda ka sheegay in wax la yiraahdo New Jubbaland aysan shaqay doonin Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn uu Kismaayo isku dhiibi doono dagaalkan dagaal ka horreeyay madaxweyne Xasan Sheekh dagaal uu la galay Axmed Madoobe sanadku markuu ahaa 2013 wuxuu isdhiibay 2015 uu isdhiibay taasoo ka dhigan isla Kismaayo inuu tagay dagaal labaad uu galay November 2024 wuxuu isdhiibay 2025 bishii tobanaad waa maalintuu dagaalku bilowday iyo maalintuu dagaalku madaxweyne Xasan Sheekh ku kalifay inuu Kismaayo tago midna kala ogaada qofka laga adkaado ayaa qofka adkaaday u taga ee qof guuleystay qofkii uu ka guuleystay uma tago waxaan ula jeedaa Axmed Madoobe ayaa Kismaayo loogu tagay ee Axmed Madoobe Muqdisho ma tagay taasoo macnaheedu yahay in Axmed Maxamed Islaam uu libinta guusha u sagu leeyahay haddana Axmed Madoobe oo Muqdisho tagin ama lala kulmin ayaa shuruudihiisa la oofinaya markay dawladdu ku dhawaaqdo shuruudaha oo dhan oo dhameystiran
ayuu axmed maxamed islaam aqbali doonaa la kulanka madaxweyne xasan sheekh intaa kadibna waxaa laga wada hadli doonaa mustaqbalka siyaasadda soomaaliya jubbaland way soo dhammaatay hawsheedii waa la soo dhameeyey waxaa miis ka saaran waa mustaqbalka siyaasadda soomaaliya iyo sida laga yeelayo waana sida ku cad shuruudaha labaad ee horyaalla shirka axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud intaa kadib axmed madoobe wuxuu ka tirsan yahay golaha mustaqbalka siyaasadda soomaaliya waxaa ku midaysan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda jubbaland iyo puntland kadib waxaa meeshaasi ka furmi doonaa kulamo toos ah axmed madoobena kulamadaasi ayuu hormuud u yahay ugu dambaynna waxay ku biyo shuba doontaa teendhada in loo laabto doorashaduna ay noqoto nidaam wada ogol ah mid waa lagu riyo karaa laakiin lama fuli karo doorasho aan wada ogol ahayn lama fuli kare waa lagu riyo karaa xaqiiqdu waa taas aan aragno halkay ku biyo shubato hadduu alla idmo barnaamijkii new jubbaland waxaa riixayay siyaasiyiin shacab axmed waa u dhammaatay axmed madoobe waa la soo xeraya halkee bay ku dambaysay cabdirashiid janan oo la yiri dadkaaga soo xasuuq ayaa muqdisho laga soo diray beled xaawo dhimasho iyo dhaawaca ka dhacay beled xaawo ayuu xabad la galay dadkiisii buu risaasiyey ugu dambayn waxaa lagu yiri new jubbaland wax la yiraahdo ma jire stop jooji baa lagu yiri muqdisho ku laabtay albaabadii madaxtooyada laga soo xirtay ninkii janan ah waa ninka alla heedeen waa geesi axmed madoobe dhabarka ka jabin doona maxay ku soo biishatay cabdirashiid janan muqdisho tagay waa la qaabili waayey duruuf iyo dan waxay kaliftay inuu photoshop uu samaysto waxaan arkayay sawir ay wada galeen wasiirka amniga gudaha fartaag iyo aadan madoobe ayaa la koobiyeeyey meeshii uu taagnaa fartaag waxaa lagu bedelay cabdirashiid janan xamza sawirkiisu waa photoshop waa kii dambe hadduu alla ku idmaayo sawirka madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waa photoshop janan dantii laga lahaa waa laga gaaray waana dhaqan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud leeyahay madaxweyne xasan sheekh dantii uu kaa lahaa markuu kaa dhammaysto iska kaa xooraya horey u dhacday wax cusub ma aha cabdirashiid jananna kama bilaabato cabdirashiid jananna kuma dhammaanayso oo waa nin lagu yaqaano madaxweyne xasan sheekh maxamuud balan la'aanta mowqif la'aanta iyo weliba qofka kobtiisa tola inuu karfantiisa tolo dadkii ka dhigay hadda inuu madaxweyne mar labaad noqdo waxaa ka mid ah madaxweyne saciid cabdullaahi dani oo codadka ugu badan siiyey 2022 muxuu ku sameeyey waa ku abaal dhacay wuxuuna noqdayba qof ilaa iyo hadda waqti gelinaya isaga iyo maamulkiisaba inuu baabi'iyo axmed madoobe wuxuu ahaa ninkii sidoo kale suurtageliyay inuu madaxweyne ka noqdo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud meeshuu dhigana waad aragteen siyaasiyiinta kale ee samata bixinta sida madaxweyne shariif ra'iisul wasaare khayre ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa dadkii uu ku abaal dhacay meesha ay maanta ka taagan yihiin waad arkaysaan aan aragno halka ay ku biyo shubato wax new jubbaland la yiraahdana ma jiri doono ceb iyo fadeexad mooyaane wax kaloo taagan haba yaraatee ma jiro waxaan arkayay 2025 kooxda madaxweyne xasan sheekh oo ku faanaya quruxda istaadiyo muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa iskale maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo celiyay bilicda istaadiyo muqdisho istaadiyo muqdisho ciidamo ay degan yihiin farmaajo ahaa ninkii inta dhex tagay yiri maya ma sii deganaan karaan isla markaana xukuumaddii xasan cali khayre ayuu ku yiri waa in arrintan degdeg wax looga qabta farmaajo iskale libinta quruxda istaadiyo muqdisho astaamihii quruxda caasimadda ninka soo celiyay madaxweyne farmaajo ah war sidee buu u ekaa tiyaatarka qaranka farmaajo ka hor adaa fiiqday kor ha u fiirin riwaayad la yiraahdo ayaa lagu jilayay farmaajo ka hor oo dadka daawanaya oo tiyaatarka jooga la lahaa war kor ha fiirinina maxaa yeelay kor oo dhan waa laga fiiqday tiyaatarkii qaranka marka riwaayadda magaceedu wuxuu ahaa adaa fiiqdee kor ha u fiirin farmaajo ah ninkii bilicda soo celiyo talooyinkii quruxda badan ee caasimadda ninka soo celiyay farmaajo ah maxay tahay marka libinta qof kale uu leeyahay sababta loo sheeganayo wixii ku soo kordha guud ahaan xaaladaha siyaasadda dalka waxaad ka daawan doontaa Facebook iyo page-ka Cabdullaahi Balwaan nabadgelyo